xusbiyada mucaaradka Soomaaliland ayaa dhawaan ku dhawaaqay inay dhicin doonaan mudaharaad salmiya oo lagaga soo horjeedo xukuumadda Galmudug iyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo ku beegan maalinta bariya Khamiista. Dhanka kalena xukuumadda Soomaaliland ayaa amar lagu joojinayo ka soo saartay mudaharaadadaasi. Dadweynaha ku dhaqan degmada Ceelafeen ee gobolka Sanaag ayaa arrinkan aragtiyo kala duwan ka dhiibtay waana kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya. بسم الله الرحمن الرحيم مدحراتك ay ku baaqeen mucaaradka jamhuuriyadda Soomaaliland ee labada xisbi ama xisbiga mucaaradku runtii aad baan u soo dhaweynaa waana xaq dastuuriya oo ay leeyihiin oo dastuurku siiyay inay mudaharaadaan dastuurkana u ballan qaaday una damaanad qaaday mudaharaad silmiya runtii waa taageeraynaa waa soo dhaweynaa waa la mudaharaadaynaa waana runtii aad baan ugu taageersanaa. بسم الله الرحمن الرحيم دمان waxaan salaameynaa ummadda Soomaaliland waxaan salaameynaa kale dhamaan xisbiyada mucaaradka waxaan soo dhaweynaynaa dhamaan mucaaradka ay ku baaqeen ama mudaharaadka ay ku baaqeen dhamaan ay yiraahdeen bisha 11keeda waa la mudaharaadaya waan ku taageersanahay waxaan aad iyo aad soo dhaweynayaa labada xisbi mucaarad ee isbahaysiga mudaharaadka ay ku baaqeen waa soo dhaweynaya horena waa soo dhaweeyay maantana waan soo dhaweynaya waxaan leeyahay xukuumadda ugu horeeyo wasiirka amniga maxamed kaahin axmed waxba ay soo taagin mudaharaadka wax ka xun baad shalay sameynaysi kulmiye halkuu gaadhay mucaarad gaadhay ma jiro annagu halkan saaka waxaanu ka sheegaynaa inaanu taageersanahay mudaharaadka xusbiyada mucaaradka ay ku baaqeen mudaharaadkaasoo ah mudaharaad nabadgelyo mudaharaad dadku ra'yigiisa ku cabirayo iyo rabitaankiisa iyada oo dastuurkeenu qorayo qofku inuu xorriyadiisa ka hadli karo isaga oo aan dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa midna wax u dhimayn soo dhaweynayaa waxaan u soo dhaweynayaa xaq ayay u leeyihiin xaq mudaharaadka in mudaharaado bulshada reer Soomaaliland iyadoo nabadayna oo nabad maxanaday lagu soconayo in la soo dhaweeyo xaq waa xaq bay u leeyihiin xusbiga xusbiyada mucaaradka ah isma hortaagi karo Muuse Biixina waxaan u sheegaynaa sidii u doonayay inuu maxanaday mudaharaadka uu meel walba ula mari jiray ee uu taageerada fiican doon jiray inuu u helo bay kuwana u baahan yihiin inay u helaan CBA waan mahadnaqayaa salaanka bacdi waxaan u aragnaa mudaharaadka salmiga inuu muwaadin waliba xaq u leeyahay inuu ra'yigiisa cabiro oo wax weeyaan wixii uu ra'yigiisa ku cabirayo uu ku cabiro marka in la cabiriyo anagu raali kama in dadka muwaadinka la cabiriyo oo la yiraahdo ra'yiga kama hadli kartid madaxweynuhu doorasho ku yimi doorashadii uu ku yimi tulamida oo imkana la rabaa marka madaxweynaha horta waxaan ugu baaqaynaa inuu doorashada si degdeg ah u qabto oo xilligeedii ku qabto hadii aan ku qaban dalka fooda isaga u horseedaya doorashada madaxweynuhu marka horeba diyaar buu ahaa haduu diyaar u ahaana waxa maanta kaliifay doorashadiid ma ay wax xirsidiid anagu waxaan u aragnaa hadaan xisbiyada mucaaradka inuu ku xanuunsaday ninka la yiraahdo Xirsi Cali Xaaji Xasan mudaharaadka ay ku baaqeen xisbiyada mucaaradku waanu taageersanahay waana salim mudaharaadka waanu taageersanahay waana leeyihiin waxaanu leenahay cidii is hortaagtaa waa cid aan qarannimada iyo jiritaanka Soomaaliland danu hayn cidii is hortaagta waxaanu leenahay mudaharaadka salimka hala qabto way ahaan jirtay dastuurkeena dhigaya bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhamaan dadweynaha reer Soomaaliland oo dhan marka hore waan wada salaamaya bahdan aad baan u salaamaya CBA iyadana aad baan u salaamaya waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa mudaharaadka berito insha Allah ka dhici doona dalka gudihiisa Soomaaliland waxaan jeclahay inuu sida salmiga uu ku dhaco ilaa ma intuu madaxweynuhu ka ogolaan doono inuu doorashada qabto aad baan u soo dhaweynaynaa waanuna mudaharaadayna waliba idinku goboladun baa tiraadeen anagu degmooyinkan waan ku daranaa insha Allah assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka waxaan aad u salaamayaa TV-gan sharafta badan ee codka bariga Afrika mudaharaadka salmiga ee lagu dhawaaqay horta aad u taageersanahay waxaan u aragnaa qodob sharciya inuu yahay aadan u taageersanahay waan soo dhaweynaa waana mudaharaadina waa u diyaarsanahay waxaan leenahay ha socoto Cabdi Rajaab Maxamed laanta afka Soomaaliga CBA degmada Ceelafeen gobolka Sanaag.